digital marketing waa qayb ka mid a marketingka taasoo loo adeegsanaya digitalka ama teknolojiyadda si loo promote gareyo ama loo horumariyo loona xayeysiiyo adeeg ama alaab la iibinayo. Haddaba digital marketingku wuxuu u kala baxaa qaybo badan oo kala duwan. Waxaan doonayaa inaan mid u sheego kuwa ugu muhiimsan anigoo u kala horeysiin doono siday u kala muhiimsan yihiin looguna kala isticmaal badan yahay. qaybta koowaad oo tan ugu muhiimsan waxaa weeye search engine optimization. waxaa laga yaabaa magaca inuu kugu cusub yahay adiga, laakiinse wuxuu ka mid yahay qaybaha ugu muhiimsan marka la joogo digital marketingka. Soomaalidana aad uma taqaan, laakiin muhiim wey. Sidaa la socono inta badan Google baa la isticmaalaa. Google baan tusaale ka dhigan doonaa. waxaa jirta Google wuxuu isticmaala waxa loo geolocation oo ah meesha qofka uu joogo inuu siiyo information ku tacalluqda. marka inaad local CEO iska hagaajiso aad bay u wanaagsan tahay. haddii qof uu raadiyo maybe tusaalaan qof baa doonay kaamaradan oo iibsado, where can I buy a camera phone, where is the best restaurant oo kale hadii lagu qoro Google-ka businessyada kuu soo baxay. haddaba businessyada inta badan waxaa jirta farsamooyin badan oo la isticmaalo search engine optimization la yiraahdo, muhiim wey. haddeertaan waxaan isleeyahayna dadku way la soo qabsanayaan. haddaba qofkii iminka kusii dadaala inuu search enginekiisa hormariyo wuxuu noqon doontaa mustaqbalka inuu meel fiican ka gaaro, horumar badanna ka sameeyo. talabaad oo iyadana muhiimka raba inaan ku xejiyo waxaa weeye iyada laftirkee Soomaalida mataqaana waxa la yirahdo content marketing. content marketing wax kale maaha qofka inuu dadka isbaro. sidaan la socono marketingka iminka wuxuu sii noqonayaa qofka meeshuu kaga kalsoon yahay inuu wax ka iibsado. waa laga tegay xilligii online wax la xayeysiin jiray raadi ah, TV laisku xayeysiin jiray, shirkadda dhihi jirta anaa ugu wanaagsan iminka waa laga tegay. dadku waxay ku kala iibsadaan hadba qofkaas intuu ku kalsoon yahay. si dadkay kugu kalsoonaadaan waa inaad productiga evidence ka sheekay kartaa, blog posts ka sameysaa, lagugu bartaa waxa adiga. marka content marketing sida ugu dhow u sharxi karo waxaa inaad dadka isbarto oo aad wax content ka iibiso ee kadib kugu kalsoonaadaan. content marketingna hadba waxaa ku horeyn doona qofku ka daacadsan yahay, uu ka saxsan yahay. shirkadaha imika waxaa jira content marketing aad ugu sii horumare. haddii imika ku qorto the best web hosting company oo kale Google-ka, shirkad baa ku siinaysa top 10 best hosting company. isla shirkadda ayada hostingka iibisaa, laakiin waxay horta inay kuu sheegto top 10ka ugu fiican. marka waxay samayn doontaa ayada number 1 bay iska dhigaysaa haddee doonto. 9 kalena wuxuu ku xiji number 10 bay kasoo bilaabay 10 9 8 host. marka u dambeyso ayadaa number 1 isgelinayso. waxay ku dhihi doontaa xataa discount baan kugu sameynana teenada kiibsatid. marka content marketingka muhiim weeye marka la joogo digital marketingka. inaga inta badan ma isticmaalno, laakiin waxaan isleeyahay haddii dadka iminka ay ka faa'iidaystaan blogga ay samaystaan waxyaabaha ay yaqaanaan ay dadka ka iibiyaan horumar badan bay ka sameyn karaan. inta saddexaad inaga tan baa si fiican u naqaanahay social media marketing oo ah in Facebooka, TikToka, meelaha Instagramka wax la soo gelgeliyo, laisku xayeysiiyo, promotion la saaro. tan waa very simple. I think waa wada garanaysaa waqti ma kuluminayaan, horaan ugu sii socon doonaa. ayadana muhiim wey dabcan haddii la joogo dhulka Soomaalida meelaha ugu fiican aan isleeyahay marketing waa laga sameyn karaa kamid tahay social media marketingka. waxaana kaaga filan inaad dad badan isku xidho oo waxyaaba wanaagsan ka sheekeyso. so waxaa isleeyahay xataa content marketingkii horaan ka sheekeynay haddii pagekaaga uusan lahayn content badan dad badan kugu xidhmaya. marka social mediaha siduu kor ugu kaco inaad content marketing wanaagsan leedahay. social mediahana wuxuu ka mid yahay qaybaha digital marketingka, aadna waa loo isticmaalaa. ta afraad oo isleeyadana muhiim waxaa weye email marketing. inaga email marketing ma isticmaalno, laakiin haddii aan rogno waxaa u bedeli karnaa SMS marketing baan dhihi karnaa, sababtoo ah dadkeena inta badan SMS bay isticmaalaan. maanta dhan fariin baa lagu soo diraa xayeysiis ah, waana qayb ka mid ah marketingka. haddii aad haysato information badan, customerka wax kaa iibsanaya nambaradooda aad haysato, waxaad uga faa'iideysan kartaa inaad promotional messages u dirto oo aad SMS-ka isticmaasho. iyadana waa qayb ka mid ah digital marketingka. tashanaad waxaa weeye waxaa la yidhahdaa pay per click marketing oo ah inaad iibsato Google-ka iyo website-yada AdSense-ka lagugu xiro xayeysiintaada. waa dhow qof markuu blog akhrisanayo la tusto sawirka businesskaaga oo aad lacag ku bixiso pay per click ah. qofka markuu taabto lacag ay kaa goodo, isaga lacag lagu siiyo, Google-na in ka reebto oo marketing noocaan la sameeyo. marka inagana uma badnatan pay per click aad looma isticmaalo, laakiin waa qayb ka mid ah digital marketingka. qaybo badan baa jira, laakiin tan baan kusoo koobaynaa oo affiliate marketing. so affiliate marketing waxaa weeye in tan aad ba hadda loo barnay, dad badan baa isticmaalo. laakiin inaga si yar waxaan u isticmaalnaa qalooqda. affiliate marketing waxaa weye in qof YouTuber for example kasoo qaad inuu productigaaga xayeysiiyo, kadibna linkii uu xagga soo dhigo dhow qofkii rabo kaamiradan oo kale inuu iibsado, linkiga ha taabto, kadib isaga promotion baa lagu siinaya, intaa uu commission buu ku helaya. laakiin inaga si kale aan u rogno waxaa jirta, waxaa aragtaan dad TikTok iyo meelaha ku jira, salaam Bilaal Bulshaabi oo kale iyo qolo kale waxaa jirta iyagana SomHD laho. SomHD aad baydan haysiinta u sameysaa. dadkaas oo dad caana oo magac leh, waxay maqaaxeedaha waxaas bay xayeysiiyaan, waxbay kasoo cunayaan,
dad la yaqaano ay page-kooda soo gelinayaan siro madadaalo waxay siinayaan so taasoo kale affiliate marketing way noqon kartaa dadka influencers in la isticmaalo marka ayaga directly lacag baa lagu siinaya saan u malaynayo oo link la kala garan looma xisaabinayo laakiin oo qayb ka mid ah digital marketingka marka xabadaas baan kusoo koobaynaa waxaana la wadaagtaa adiguna digital marketingada kugu cusub imika aan idiin sheegay aadna hore u garanaynin waxaa su-aalaha qabtaana comment inoogu soo qora asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu